wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland oo kaashanaysa hay'adda Belarus ayaa adeegyo caafimaad oo wax loogu qabanayo dadka waxa ay ka fulisay cisbitaalka degmada Baardheere. Wariyahayaga Bashiir Ibrahim ayaa warkaasi soo diray. wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Jubbaland iyo hay'adda Belarus Foundation ayaa waxa ay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ka fuliyeen adeeg caafimaad oo wax looga qabanayo dadka faruuran. Hawshan caafimaad oo loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan ku dhawaad ilaa 150 ruux ayaa waxa ay si rasmi ah uga bilaabatay isbitaalka guud ee degmada Baardheere. ugu horeyn waxa adeegan caafimaad warbaahinta Star uga warbixiyay qaar ka mid ah howlwadeenada caafimaad. Thank you very much for giving me this opportunity. My name is Dr. Martin Kamau from Belarus Foundation. I'd like to say thank you to the government of Jubbaland and the people of Jubbaland for extending this invitation for the Belarus Foundation to come here and partner with the government and the hospital in providing this service to the people of Baardheere. Magacayga waa Dr. Martin Kamau. waxaan aad ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta inoo fidiyeen wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka iyo maamulka. waxaana ka socda hay'adda Belarus Foundation oo ka fulinaysa isbitaalka guud ee degmada Baardheere qalimada furuuranka oo lacag la'aan ah. As you can see, I have come with a team from Belarus Foundation, but we will partner with, of course, the local hospital team to make this mission a success. I do hope that we will be able to treat as many, if not all the patients. I say all the patients actually hopefully will be able to treat and make sure that we do safe and quality surgeries for them all. ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay madaxa arrimaha bulshada degmada Baardheere Xuseen Cabdullaahi Xalane oo ka warbixiyay ahmiyadda uu bulshada u leeyahay adeegan. waxaan maanta meeshan ku soo dhaweynaa ama ku daafuraynaa hay'ad caafimaad ah oo ka socoto in ay ka fuliso Baardheere qaybta dadka faruuran oo kulli waa la yaqaan dadka faruuran xaaladiisa ama hadda bini'aadamka sida ay u yaqaanaan faruurku macnaha waa wax lagu dhasho waayo oo bini'aadamka Allah uu ku khalqay. hay'adaas oo tabaruca u sameynaysa una gargaaraysa dadka asaga ah weeyaan saaka xariga oo goynaynaa in ay ka bilowdo hawsha ayadeeda tabarucadeeda dadkaas ay ugu gargaaraysa degmada Baardheere isbitaalkiisa. barnaamijkaas oo ay soo ansixiyeen ama uu ka imaaday al-Olisi abaabilkiisa wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Jubbaland. soo dhawaadaan leenahay guud ahaan wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Jubbaland. Bashiir Ibrahim aadan warbaahinta Star Baardheere.